marka waxa way dhul joog waa laga roon yahay jikada dadka 7 timid marka nin walba qaliyo muur buriyo haya oraxdana taaganahay waxaan u taaganahay waxa waa in nagala dambeeyo wax nagala rabo oo anaga dad wax naga sugayaan in dadaal naga jiraan xasan geesi wuu waayay doorasho aan ka ahayn inuu ku dhex shaqeysto haraadiga walxii ka haray dhismayaashii dabku baabiyay waayo ma ahan keligii noole isbixin kara garabka bidix ee xasan waxa isna ku dhinac ganacsanaya maxamed sheekh oo isna duruufuhu ku qasbeen inuu u soo banbaxo dhacsiga nolol maalmeedkiisa wax alxamdulillah maamulkii oo meeshii wax ama nadaafada taa ku sameeyay taa ma hayn ummadina waraxdan iyo habaaskan iyo buskan iska dhex fariisaa waxaasna waxa waaye daruufta ku kaliftay marka dib saas u jira macaamiil lama haynayo bustan maba aday raashin maba ku ansaxayo cid ku soo roogsanaysa malaba sababtoo raashinka waxa oraxda ku dhacday iyo bustiin cid wax ka oo gadanaysa male labaduba waxay kamid yihiin kumanaanka ganacsato ee ku xoolo beelay dabkii dhawaan ka kacay suuqa Madiina jeedaalinta afarta jiho ee suuqa ayaa muujinaysa xaddiga uu la ekaa dabkii sida ba'an dhulka ula simay sandaqadihii jiingadaha u badnaa ee ku safnaan jiray halkan Maryan Ismaaciil waxay wali xusuusan tahay sida ay goobtani u lahayd muuqaal aad uga weydaaran midka maanta suuqaadii waxa yahay xumaa taalo ma nuuraayo sidoo laakiin bilac fiicneed sama inkasta oo badi ganacsiga ka jiray halkan uu dhulka la simay dabka haddana qof kasta uma gaarin khasaaraha si islaag Maryan oo kamid ah kuwa uusan khasaaruhu wada gaarin ayaa ku jirta hawsheeda cadiga ah inta aniga qudaara iibi jiray leedan waa iibiyaa dukaankiga meeshaan ku yaalay intiis waa iga baabaaday cid aan maanta garabka aan igu siinaysan ma jirto balse waa hubaal la'aanta ka jirta sida laga yeeli doono dhismaha suuqa waxa ugu weyn oo ay ka walwalayaan waxaan jecelahay inaan gurigayga iyo macnaha jiingadayda inaan dhisto intaas muhiim ah yaanay maye maamulka kale way nagu magacan sayrin in waa dhisi kartiin oo yiri laakiin qashinka iska qaada wixii la iska diyaariyo hadaladiis kamid ahayd in dib loo taago dhismayaashii halkan ku baaba'ay waxay qaadan doontaa muddo waxaas isweydiintu tahay in intee leeg ayaa laga feejignaan doonaa musiibadii dhacday mid la mid ah inaysan soo laaban